halgamaaga maaragtay xaaji aadan axmed diiriye waxa weeye uu taageero weyn ugu fidiyey deegaanka sidaa awgeed ilaa maantana taageerada uu hayo ardaydaas waa arday waxbaratay oo kala duwan oo jaamiciina shaqaalaha meesha ka howlgala intooda badani waa arday baadiyahan wax lagu baray kadibna jaamacadaha kasoo qalin jabiyey sida macallimiinta hore baad arkayseen oo macallimiinta qaarkood double degree tarbiya ay yihiin double degree shareeca qaynuun ay yihiin anigoo dee double master ah oo dee laakiin waxa weeye maaragtay anigana taageero fara badan uu siiyey xaajigu hadday tahay ilaa yaraantaydii waxbarashadaydii oo dhan iyo ilaa haddaba uu maaragtay mar kastaba uu taageero noogu hayo sida aanu wax u baran lahayn iyo sidaanu deegaanka u horumari lahayn sidaa awgeed deegaankan kusoo noqday si aan dadka wax u baro anna intii lay baran in leeg aan maaragtay kusoo qaado sidaa awgeedna ardayda aan halkan ku haynaa waxa weeye waa 10 fasal 10ka fasal waxay isku jiraan KG1 iyo KG2 laba KG iyo fasalada koowaad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad iyo sideedaad ardayda sideedaad ee sanadkan qaranka u fadhiisan doona imtixaanada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka qayb qaadan doona dhowr iyo 10 arday ardaydaas oo ah ardaydii halkan la keenay iyagoon maaragtay alif looga bilaabay xarafkana ba looga bilaabay ilaa maanta ay fasalka sideedaad gaadheen waxa kale oo iyaguna inta garab socda ardayga halkan fasalka sideedaad ka baxa waa arday haya axaadiistii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo 30 juz ee quraanka dadka muxsiniintaana waxa leenahay ifkana khayr ilaahay haydisiyo aakhirana janna ilaahay haydisiyo dadka muxsiniinta xaajigu ugu horeeyo inuu hayna halkaas ugu soo ducaynaynaa inta kalena waxa leenahay tusaale fiican buu Soomaaliland oo dhan u yahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waanan xusaynaa markasta oo waxa weeye oo astaan u taagan in lagu daydo role model dadka maanta sidaas awgeed waxa kale oo iyaguna halkan